bilowga filimka waxaa lagu dejiyey meel dagaalkii labaad ee adduunka ee Berlin. Führer Hitler waxa uu la socdaa tababare habdhaqan lagu magacaabo Kebli. Hitler waxa uu muujinayaa khilaafkiisa muujinta salaanta dadka Kebli. Wuxuu ka cawday in kastoo salaanta naasigu ay tahay mid ka baxsan qaab dhismeedka, dadku waxay u baahan yihiin inay ugu yaraan gacmahooda sare u qaadaan cududda oo ay muujiyaan ixtiraam. Dabadeed waxa uu ka warramayaa in uu sameeyey wax kasta oo suurtagal ah uu bani'aadmigu u suurageliyey si uu u burburiyo aasaaska cadowga wasakheeyey dhulkooda. Jiritaanka Jarmalku wuxuu arkaa mid aan la fahmi karin, wuxuuna u arkaa wax laga naxo inuu isna halkan joogo. Muuqaalka soo socda ayuu ka toosay dhulka meel kayn ah. Inta uu eegayay cirka, waxa uu arkay in diyaaradihii cadowgu maqan yihiin oo uu qiyaasay in ay xoogaa nasteen. Si lama filaan ah, kubad ayaa xaggiisa u soo boodaysa oo waxay istaagtay dhankiisa. Kadib waxa uu yimid 3 carruur ah oo su'aalo weydiinaya haddii uu fiican yahay. Hitler wuu fiiriyaa oo wuxuu u maleeyaa inay yihiin mustaqbalka qaranka. Dabadeed wuxuu weydiiyey dariiqii ay marayeen. Isla markiiba wariye Fabian Sawatski ayaa ku duubaya carruurta kamaradiisa. Hitler waxaa lagu arkay dhanka fog ee shaashadda. Waxa uu soo qaaday koofiyadda ciidanka oo is yidhi waa inuu aado Führer bunker. Hitler waxa uu soo baxay dariiqa waxaana uu la yaabay dadka fuushan baaskiilka. Waxa uu ka helay dad isaga kaameradooda ku qabtay oo waxa uu sheegay in inkasta oo burbur ku dhacay, haddana dadku waa waasheen. Dabadeed waxa uu dareemaa baabuur casri ah oo gacantiisa ku jira oo uu naftiisa su'aalo haddii uu koomo ku dhacay oo uu seegay guusha. Wuu garwaaqsaday in aanu gebi ahaanba ka warqabin xaaladiisa oo uu naftiisa ku baraarujiyo si uu xog badan u ururiyo. Kadib waxa uu weydiiyaa nin meesha ay ku taal kancellary, laakiin qofka taa beddelkeeda waxa uu weydiiyaa sawir. Waxa uu dhibsaday bilicda kaamirada marka dadku u soo dhowaadaan oo ay sawiro ka qaadaan markooda. Isaga oo ku wareersan dhacdooyinka aan caadiga ahayn ee ku xeeran, markii uu Hitler sii baxayay, waxa uu helay naag ku hadlaysa Jarmal oo telefoonkeeda ku hadlaysa. Wuu u soo dhowaaday oo weydiiyey taariikhda hadda jirta. Laakiin naagtu way argagaxday oo ay indhaha ka saydhay. Hitler wuxuu la ooyey xanuunka markii indhihiisu guduudanayaan, wuu turunturooday, wuxuu u socdaa dukaan wargeys oo u dhow. Wuu ka naxay markuu arkay taariikhda Oktoobar 3, 2014 ku qoran warqad oo uu dhulka ku dhacay hal mar. Meel kale, madaxa xarunta T. Kerner waxa uu ku ammaanay Christoph Sensenbrink shaqadiisa wanaagsan ee madaxa ku-xigeenka. Waxa uu soo jeedinayaa xal sare, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ku dhawaaqayaa shaqaale kale oo lagu magacaabo Miss Katja Bellini oo ah agaasimaha maamulka. Taas awgeed Christoph wuu naxay oo kuma qanacsana. Waxa uu yimi xafiiskiisa oo uu ka cadhooday filim sameeyaha halganka adag ee Fabian. Inkastoo Fabian uu isku dayay inuu ku qanciyo madaxiisa, waa la eriyey. Muddo kadib, Hitler waxa uu ka soo toosay dukaanka wararka oo weydiiyey milkiilaha taariikhda. Waxa uu xaqiijinayaa in ay dhab ahaantii tahay 2014. Hitler wareersan waxa uu ugu hanjabay in uu dili doono dukaanlaha haddii uu u shaqeeyo cadowga, laakiin dukaanlaha waxa uu siinayaa shukulaato. Hitler halgan adag kadib wuu furay wuuna ursaday. Waxa uu ku dhawaaqay in ay tahay hadhuudh warshadaysan oo la tuujiyey oo su'aalo weydiinaya dukaanlaha haddii ay weli jirto roodhi yari. Dukaanlaha ayaa ku weydiinaya Hitler haddii ay duubayaan dokumentari meel u dhow, iyagoo u khalday in uu yahay jilaa. Dukaanlaha ayaa markaa sheegay inuu si sax ah ugu eg yahay Führer, uu Hitler ugu jawaabay inuu yahay Führer. Intaa kadib, Hitler waxa uu arkay wargeyska Turkiga oo weydiiyey in dukaanlaha uu leeyahay Sturmer ama Panzerbar. Dukaanlaha ayaa sheegay inuu leeyahay macaamiil badan oo Turki ah. Hitler waxa uu la yaabay joogitaanka dadka Turkiga ee Berlin. Kadib waxa uu bilaabay ururinta macluumaadka wargeyska. Inta uu akhrinayay, waxa uu u qaatay in aanu ku guulaysan dagaalkii hore oo Jarmalku waxa la siiyey gacmaha dumarka qalafsan ee leh quruxda baasto qoyan. Waxa uu intaa ku daray in uu ka xun yahay jiritaanka Poland, waxaana uu ku soo gebagabeeyey dagaalku in uu noqdo khasaare guud. Dhanka kale, Fabian wuxuu eegayaa muuqaalkiisa ka warbixinta kubadda cagta iyo baroorta, isagoo ka murugaysan in shaqada laga eriyey. Hooyadii ayaa dejisay oo weydiistay inuu joojiyo muuqaalka, iyadoo ogaanaysa inuu gadaal ka joogo Hitler. Fabian waxa uu ku madadaalay helitaanka qof u eg Hitler. Marka lagu soo noqdo dukaanka, dukaanlaha ayaa ka codsaday Hitler in uu wargeyska dhinac ka dhigo oo dibadda istaago. Hitler wuu ka xumaaday markii la weydiistay inuu shaqeeyo. Dukaanlaha ayaa u soo jeediyey Hitler inuu nadiifiyo dharkiisa, waayo way urayaan. Kadib waxa uu aadayaa goobta dharka lagu dhaqdo oo weydiisto in ay nadiifiyaan labiskiisa. Hitler waxa uu weydiiyey in ay wataan labis kale maadaama aanu qaawanaan karin. Marka xigta, waxaan aragnaa Hitler oo u socda war iibiyaha oo wata jeans iyo funaanado.
kadib markii uu eegay Hitler waxa uu la yaabay muuqaalkiisa. Fabian waxa uu weydiiyey Hitler in uu filimka duubi karo marka uu dhex marayo Jarmalka casriga ah. Hitler wuu ku raacsan yahay fikradda. Fabian wuxuu ka qaatay xoogaa lacag caddaan ah iyo baabuur hooyadii wuxuuna safarkiisa la bilaabay Hitler. Labaduba waxay ku dambeeyaan hoteel halkaas oo Hitler uu ku maadsado daawashada telefishanka. Kadib waxa uu go'aansaday inuu kaga hadlo siyaasadda bandhigga Fabian. Wuxuu tagaa meelaha uu dadka wax ka weydiiyo aragtidooda ku aadan siyaasadda. Waraysiyada kadib waxa uu ogaaday in ay jirtay saamaynta ugu yar ee dimuqraadiyadu ku yeelatay dadka intii uu maqnaa. Wuxuu fiiriyaa niyadjabka iyo xanaaqa dadka taas oo xasuusinaysa 1993 Meeyadii markaasoo dadku isku aragti ahaayeen balse ay ka maqan yihiin ereyga siyaasadeed nacayb. Dadku waxay u sheegaan Hitler dhibaatada soogalootiga dalka ku nool taasoo ka dhigaysa Hitler inuu riixo fikradiisa ah in isku dhafka jinsiyadu aanay shaqaynayn. Kadib Fabian waxa uu weydiiyey Hitler isha shaarigiisa gaarka ah. Hitler waxa uu ku jawaabay in uu shaarigiisa u gooyey qaabka si uu ugu xidho maaskaro gaas ah. Muddo kadib labaduba waxay ku dambeeyeen beer uu Hitler ka qaniinay. Wuu xanaaqay oo xabad ku dhuftay xayawaankii. Fabian wuu canaantay oo qorigii ka qaatay. Siduu socdaalku u socdo, Fabian aakhirkii waxa ka dhammaaday lacag caddaan ah. Laakiin waxa uu ka fakaraa qorshe wuxuuna ku qanciyaa dadka gudbaya in sawiradooda uu sawiro Hitler. Hitler waxa uu sawiraa sawiro sarbeeb ah dadku ka maadsadaan oo ay lacag ku bixiyaan. Waxay sii wataan safarkooda kadib markii ay ururiyeen lacag ku filan. Dib ugu soo noqo magaalada, Fabian wuxuu tusay sawirqaada Hitler ah Christoph. Fiidiyowgu waxa uu leeyahay aragtiyo badan sida Fabian ugu soo geliyey internetka. Christoph aad ayuu ula dhacay aragtida tirada badan ee ku jirta fiidiyowga. Wuxuu weydiistay Fabian magaca Hitler iyo lambarka xidhiidhka. Kadib markii uu la kulmay, Christoph waxa uu ka shakiyey Hitler in uu yahay qof waalan waxa uuna ka codsaday Fabian in uu ka kaxeeyo xafiiska. Ka hor intaanu dhoofin, Hitler waxa uu soo galay xafiiska agaasimaha oo ka codsaday in ay isaga la badbaadiyaan Jarmalka. Waxay si degdeg ah u weydiisataa kaaliyaheeda inuu u diyaariyo qaab tii ku habboon loogu baahin karo Führer marka la dhageysto fikradda Hitler. Fabian ayaa markaas ugu hanjabay Christoph in uu shaqadiisa u soo celiyo haddii kale uu ka qaadi doono. Hitler marka uu tan maqlo, Christoph waxa uu ka dhigay wiil jikada ah isagoo u ballan qaaday in uu dalacsiin doono marka boostada tafatirka cusub la furo. Muddo kadib, Hitler waxaa la siiyey miis istuudiyaha tiiga ah. Christoph waxa uu ku baaqay in Kromeyer uu ka caawiyo Hitler isticmaalka kombiyuutarka. Hitler waxa uu dib u xusuustaa kombiyuutaradii waagiisii oo waxa uu ku calaa'adiyey hal abuurku inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn. Kromeyer waxa uu isku dayay inuu u saxiixo Hitler si uu boostada ugu diro balse waxa uu ku wargeliyey in magaciisa mar hore la qaatay. Hitler waxa uu u gunuunacay kuwa kale oo xaday magaciisa. Christoph waxa uu qorsheynayaa in uu Hitler geliyo bandhig majaajilo toos ah. Waxa uu damacsan yahay in uu dooda ku soo kordhiyo cunsuriyad isaga oo kaftan sarbeeb ah u jeedinaya Yuhuudda uu ka tuuray Hitler. Bandhigu wuu bilaabmaya, Witzigmann martigeliyaha wuxuu ugu baaqay Hitler masraxa. Dhagaystayaashu waxay xamanayaan muuqaalka Hitler, laakiin marka uu Hitler eego dhagaystayaasha hoolka gebi ahaanba wuu aamusaa. Hitler isla markiiba wuu jebiyaa aamusnaanta, laakiin ma akhriyo khadadka sida loo qoray. Waxa uu sheegay in TV-ga uu yahay hal abuur aad u wanaagsan oo bini'aadamka sameeyey, laakiin bandhigyada la sii daayo waa kuwo aan macno lahayn. Wuxuu iftiimiyey dhibaatooyinka sida faqriga iyo shaqo la'aanta wuxuuna saadaaliyey in dadka dalku ay ku sii jeedaan godka dheer iyagoon dareensanayn. Hitler waxa uu wacad ku maray in uu la dagaalami doono TV-ga keliya maaha ilaa baahinta yaameyska, laakiin sidoo kale ilaa uu ku guulaysto in uu ka gudbo. Qof kasta wuu jecel yahay fikradda wuuna u sacbiyaa isaga. Markii la arkay caannimada Hitler, martigeliyaha Witzigmann wuu ka masayray. Bellini waxa uu Christoph ka codsadaa in uu sii daayo Hitler bandhig kasta. Christoph wuu murugaysan yahay sababtoo ah fashilka qorshihiisa. Muuqaalka soo socda waxaan ku aragnaa Hitler oo waraysiyo ka bixinaya barnaamijyo badan oo ah inuu mar kale ka dhigo Jarmalka mid weyn. Caannimadiisu aad bay u koraysaa wuxuuna la kulmaa dhowr qof iyo madaxda xisbiga. Wuxuu bilaabaa inuu soo jiito dhammaantood isagoo la wadaagaya fikradihiisa. Hal maalin Hitler iyo Fabian waxay booqdeen xaruntan big ee Berlin. Waxa uu u yeedhay Ulf Birne, gudoomiyaha federaalka. Hitler wuxuu ku dhacaa oo wuxuu leeyahay waxay lumiyeen waqti ku filan, dhaqdhaqaaqa ayaa laga qaaday. Christoph aad buu u farxaa marka booliiska iyo xeer ilaaliyaha degmada ay ka soo muuqdaan istuudiyaha TV-ga. Waxay sharxayaan inay halkan u joogaan cabasho ku saabsan ku xadgudubka sharciyada nacaybka. Bellini waxa uu weydiiyey waxa ay samaynayaan markaa. Si degdeg ah, Christoph waxa u soo baxay in laga yaabo inay u baahdaan inay joojiyaan bandhigga Führer.
waxay sheegtay inay sii wadi karaan baahinta. kadib Cromer ayaa ku wareejinaya warqad u ah Christoph oo sheegaysa bixinta eeyga ee hirgakaas oo Hitler uu horaan ku soo qaaday safarkiisa. Christoph waxa uu helay warqadda si farxad leh isaga oo aaminsan in ay tahay dariiq dhibaato loo geysto. marka xigta Hitler waxaa la dhigayaa barnaamij TV halkaas oo lagu weydiinayo su'aalo toos ah oo ku saabsan doorarkiisa kala duwan ee dagaalka. Hitler waxa uu ku jawaabay in uu doonayo in uu la xidhiidho dadka laakiin waraystuhu waxa uu u sheegay in dhammaan camaladiisa aan la caddayn karin. waxa uu tusay sawirka isaga oo eeyga tooganaya. Hitler wuu xanaaqay wuxuuna ugu hanjabay inuu sidaas oo kale ku samayn doono isaga. waxa uu intaa ku daray in uu istuudiyaha u rogi doono meel baabuurta la dhigto. Christoph aad ayuu ugu faraxsan yahay in uu arko jawaabaha xun ee dadka. waraysiga musiibada ah kadib Bellini waa la eriyey waxaana Christoph loo magacaabay maamulaha cusub. intaa kadib Hitler waxa uu aaday guriga Fabian oo uu bilaabay in uu la noolaado. wuxuu ku muujiyaa maaweelo jidka qadar ku qaaday oo bilaabay inuu qoro buugiisa labaad. buuggu markiiba suuqa ayuu soo galay. 3 bilood kadib istuudiyaha TV-ga qof kasta wuxuu fadhiistaa shir halkaas oo lagaga hadlayo khasaaraha weyn ee shirkadda soo gaadhay. Christoph waxa uu aaminsan yahay in bandhiga Witzigmann uu dib ugu soo celin doono wadadii saxda ahayd laakiin mid ka mid ah shaqaalaha ayaa ku wargeliyey in uu ka tagay shaqadiisa. Christoph wuu xanaaqsan yahay oo wuu ku xanaaqay shaqaalihii la doortay sababtoo ah lumitaanka bandhiga. mid ka mid ah shaqaaluhu wuxuu soo jeedinayaa in dib loo soo celiyo Hitler. waxa uu mar kale raadiyaa Hitler uu u soo bandhigaa Fabian in uu 1 milyan gelin doono filimka ay Fabian iyo Hitler tooganayaan haddii ay beddelkeeda u ogolaadaan in ay filimka ka sii daayaan TV-gooda. Hitler iyo Fabian waxay yimaadeen guriga Cromer halkaas oo Cromer ayayo u aqoonsatay Hitler. waxay ku andacoonaysaa in Hitler uu gaas dadka oo dhan kiciyey oo uu laayay. waxay ugu yeertaa dambiile waxayna ku qaylisay inuu dibadda u baxo. baabuurka dhexdiisa Hitler waxa uu la wadaagay in uu la yaabay Cromer oo Yuhuudi ah. waxa uu bilaabay in uu yareeyo Yuhuudda iyaga oo ugu yeera in ka yar bani'aadmiga. Fabian wuu ka niyad jabay ficilka Hitler iyo erayadiisa. dib ugu soo noqoshada shaxda Fabian waxa uu Hitler ka dhigayaa inuu ku celiyo sidii uu meesha ku gaadhay. waxa uu weydiiyey Hitler waxa dhacay ka hor inta aanay kubaddu ku soo rogin kaynta dhexdeeda balse Hitler ma xasuusan karo. habeenkii dambe wuxuu ka baxaa goobta waxaana ku hareeraysan tuugo. waxay u baaxo adag uga dhuftaan wejigiisa. markuu Hitler indhaha kala qaaday wuxuu isku arkay isbitaal ku yaal Bellini hortiisa. isla mar ahaantaana Fabian wuxuu eegayaa muuqaalka fidyowga uu ka qabtay wiilasha iyo kubadda cagta. aad buu u eegay oo wuxuu arkay Hitler oo ka soo kacay meeshii uu jiifay. Fabian aad ayuu ula yaabay wixii ka hor dhacay. si degdeg ah ayuu u tagaa goobta oo waxa uu ka helay loox goobta sheegaya goobta taariikhiga ee Führer Bunker. Fabian wuxuu u cararay isbitaalka laakiin ma uusan helin Hitler. Bellini waxa uu sheegay in uu ku wajahan yahay goobta toogashada. Fabian wuxuu daaha ka qaaday inuu yahay Adolf Hitler ka dhabta ah laakiin Bellini ma rumaysna isaga. Fabian wuu waalan yahay oo wuxuu isku dayaa inuu si qoto dheer u sharaxo aragtidiisa. ilaalada ayaa isku dayay inay qabtaan laakiin wuu cararay. Fabian dabadeed waxa uu gaadhay goobta lagu rakibay oo uu qori ku bartilmaameedsaday Hitler. markii wax laga weydiiyey aqoonsigiisa Hitler waxa uu sharaxay in aan weligiis sheegan in uu yahay qof kale. Fabian waxa uu sheegay in Hitler uu dadka ku qiyaameynayo dacaayadiisii uu Hitler ugu jawaabay in dadku ay doorteen hogaamiye. waxa uu gees ka taagay Hitler oo uu ku caddeeyey inuu yahay bahal. Hitler ayaa isna dib u sacbiyey isagoo leh dadka caadiga ahi waxay doorteen nin aan caadi ahayn oo ay u dhiibteen masiirka dalka isaga. waxa uu sharaxay in dadku isaga u doorteen sababtoo ah waxay ku sitaan qiime isku mid ah qalbiyadooda gudaha. Fabian oo aad u xanaaqsan ayaa toogtay Hitler isaga oo ka dhigay in uu ku soo dhaco dhismaha waddada. wax yar kadib Fabian waxa uu maqlay codka Hitler kaas oo leh ma jiro Jarmal ka takhalusi kara isaga. Hitler oo hadda la tuuray ayaa mar kale gadaashiisa ka soo muuqday. isla markaas Bellina waxay ku baaqday in la gooyo istuudiyaha qof walbana wuu ku faraxsan yahay duubista. meel kale Cromer waa uu barooranayaa isagoo arkaya Fabian oo dalool ku yaal qaybta dhimirka. Hitler iyo Bellina waxay ku mashquulsan yihiin bixinta sawir gacmeedyo iyo waraysiyo dadka kadib markii filimku kor u kacay. markay baabuur ag marayeen dadka dariiqa joogay waxay u muuqdaan kuwa jecel Hitler oo si xushmad leh u salaamaya. Subscribe saar si aad u hesho muuqaalo badan oo noocan oo kale ah. sii sharagaree linkiga oo la wadaag asxaabtaada si aad u caawiso kanaalka. hoos noogu reeb fikirkaaga waad ku mahadsan tahay daawashada.